يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا. daawadayaashada qiimaha iyo qadarinta mudan oo ku soo dhawaada barnaamijka raawon ka diyaarinay Allah u naxariistay Sheekh Ibrahim Xaaji Maxamed Sheekh Ibrahim sheekhan oo ku dhashay tuulada Geesaley oo hilaadii 30 kiiloomitir ku jirta degmada Calowle ee gobolka Bari halkaas oo ku barbaaray kadib waxbarashadiisii magaalada Cadan ayuu ku soo noqday halkii uu ku dhashay isagoona macallin ka noqday kuna dhisay masaajid iyo beer waxaan ka wareysanay odayaal ku dhaqan tuuladaasi Geesaley oo nooga warbixiyay raxiim Sheekh Ibrahim Maxamed Xaaji Ibrahim iyo Sheekh Yuusuf Maxamed Xaaji Ibrahim waxay ahaayeen walaalo ah oo magaalada Geesaley degan oo macruuf ah oo wadaad ah oo la yaqaan oo waxa weeye awlaad ku dhalay Ibrahim Maxamed Xaaji Ibrahim wuxuu dhalay 4 ciyaal laba waa ka dhimatay laba wiilna waa u kacday ninka la yiraahdo Yuusuf Maxamed Xaaji Ibrahimna ciyaal badan buu ku dhalay hal wiil baa u kacay halkii wiilna aakhirka u dhameeyay waa uu dhintay magaaladaas waxay ku lahaayeen beero masaajid oo Ibrahim ka dhisay oo shaqadii ugu horeysay oo qabto ah kabacdi waa ka tagay halka iyo Buucam uu tagay Ibrahim wuxuu ahaa asaasihii Buucam meeshii ugu horeysa oo Buucam la yiraahdo ninka ugu horeeyo oo masaajid ka dhisay isagoo ahaa dabadeedna beero ka fura dabadeedna malcaamad quraan ka fura dabadeedna iskuul wax lagu barto ka fura sida iyadoo ay tahay haddana Ibrahim waa soo noqday dadka waa marxabaysiiyay Yuusufna waa tagay halkaas uu tagay isaguna ilmuhu ku dhalay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilmihi waa u kacay waxa weeye anigu waa arkay Maxamed Yuusuf Ibrahim kabacdina insha Allah biidnillaahi tacaala waxa weeye halkaas ay wax ku barteen waa noo yimaadeen waa is aragnay waa noqdeen masaajidka Geesaleyna waa burbursan yahay beertina waa aragtaan وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي هاي ولاد والدنيا ما تولد الجسد كل شيء اللي أنتي ككراية علمنا أخ. ولادنا ولاد من لا احترامه وحكى السبب اللي ويجي فرايل وحكى مساجد كل بالشيخ يكاهل هاي. يجي ما يسوي شيء. waxay ahaayeen arday quraanka waa qaban jireen waana shaqaysan jireen beerana waa dhigeen masaajidna waa dhigeen ninka Ibrahim Maxamed Xaaji yaa waana yaalaan beerana waa taal dadka dhahdaysa hayna way joogaan oo badan way joogaan guryahoodii waxa weeye kala baxeen laakiin hadda guryaha hadda wacadaha oo hadda meesha u yaalo yaa ma jiraan laakiin waxay ahaayeen culummo reer Geesaley oo wadaniya bay ahaayeen yaa oo laga yaqaan degmada laga yaqaan Ibrahim Xaaji waa naga tagay akhir Yuusuf siyaasad oo ficilay yaa hada kahay xaga haduu naga tagay waxaan maqlay wiil buu dhalay yaa Ibrahim ciyaal badan buu xaga ku dhalay bahdi labaad xagaas ciyaal badan buu ku dhalay laakiin niman walaalahay wadaniya yaa bay ahaayeen yaa oo culummo ah intaasi kadib sida ay noo sheegeen culimada iyo waxgarad gobolka Sool ku nool oo aan wax ka weydiinay taariikhdii sheekhaasi ayay nooga warameen inuu ka mid ahaa culimadii waaweyneed ee laga yaqaanay deegaanada gobolka Sool gaar ahaan Buucame waa kuwan culimadiin iyo waxgarad ka warbixinaya taariikhdiisa khayr Allah nasiyo waxaan soo jeedinayaa warbixin aan ka hayo رحمة الله عليه له ونحس الشيخ آدم شيخ إبراهيم محمد والشيخ آدم أبيه أخا انقاسوا عن شيخه صبر شوي بنو لحيسي وهانن قد الصوماليات انتوا حلال سنة هو نظيف سنة علماء maalin maalmaha ka mid ah 60kii waan aniga iyo nin la yiraahdo Axmed Gayde oo isna Xasan Waasa aan ku tagnay Laascaanood isagoo wuxuu ku wataa raashin la iibiyo 2 kintaalo sonkor iyo bariis ana alaaban ku qaatay bagaasho dhar jawaan ku jiro fudud وسيلو بين أبو عمان تغني
maalin geelkeedii hore oo geeli ka fulay geel ba ka cabayo diraac bay waqtigaas waa 63 awalkiisii ama dhexdhexaadkiisii markaas waxaan meeshaan ugu joogna oo ceelka cabnay markaa tukanay waa dad badan oo soconaya noo yimi waanu garanayno dad badan oo raaba ah dadkaas markaa ceelka dushiisa bay degeen Sheekh Ibraahim baa kamid ahaa Ilaahay ha naxariisto war maxaa u socoteen waxay meesha magaalo ka dhigaynaa anti waa horsanay horta kalabtaana waa ka carownay jeexa waa la yiil dadana aad wadnin baa yiil habeenkii dadkii baan u hoyanay hanti dameetana waa joognay saddex baan meeshii geed joognay ceelkana waa imaanaya dadkii badnaa goobtii baa la qaytay oo laga sameeyay magaalo Sheekh Ibraahim markaa wuxuu madax u ahaa oo isagoo la shaqeynayay mucaamil iyo masaajid bay jeexeen dadkii isagoo intaas suuq ka jirtaasuu madax u ahaa waan ka tagnay anagu waxaan aadnay bari baan u dhaafnay rabbaabnaanu gaadhno waqti dambaan uu ka soo noqday iyadoo markaas masaajid cariisha meeshii laga dhisay oo dhir ah malcadiina qaydintooyadina la dhisayo la socod markaa u soo dhaafay habeen baan joognay la socod baan u soo dhaafay waqtigaas daraac bay ahayd meesha aad baa loo qayday sheekh hore islaan noqon markaasaan isbaranay Sheekh Ibraahim oo bari uu ka yimiyo markaa reerka isku raadsan Xasan Waas mala joogay markaa muddo yar buu joogay muddo aan badnayn buu joogay bari buu ahaan jiray ways wareysana ways baranay markaa dadka guriga qayday isagu samacaadi masaajidka mashquul ku ahaa masaajidka markii carish waa lagu tukaday waxbaa loo soo guray waa la shaqeeyay markaas diraac bay ahayd anigu markaas bari baan ka aadin asxaab baan wato waa lugay nimankaan arsi ku darsana asxaab baan aaday waxaan ku soo noqday kuwii waa ka maqnaa diraacdaas kuwii ka dambeeyey qaybtii dambena dadku wuxuu guuray hawd iyo magacley dhulka ceel qaansiyo magacley waan tegey dad ariigu jiray baan ka soo socday misana habaan wareysta waxaa la yidhi mucaamadii waa la camiran tahay iyo masaajidkii shiikhaasa haya qaybtii markaas waa la soo rogmaday qaybtii dabadeedna boocama imi inuu mucaamadina aad u camiran tahay masaajidkan lagu tukado maasha allah magaalada la degay dukaamo laga sameeyay carshaan midhaan anuu markaas waxaan joogay asxaabna soo gaari jiray 13 bilood baan joogay oo diraacda dambe oo 63kii diraacdiisii dambeeto ugu dambeysay waxaan soo gaari jiray bacana waa joogay Sheekh Ibraahim aad u dadaal badan buu ahaa malcamadii masaajid mas'uul ka ahaa anigu waxaan ka caawin jiray xagga masaajidka oo quraan akhriska iyo mawlidka iyo baqriska iyo aad bay meesha loo camiray aynkaas ahaa marka dadka rajabka la soo qoray ay tuulaha iyo macalinka iyo arajiro soo qoray la saanood ولله إنكاس المعامل بهيا وأنا إمامك مساجدك هاي ترى رجاسة إنكاسة تدك عين كاسة هاي ترى ولا شو قبصة لكن تم العمد الناس ما قبصنينه في أحمد وفرح الله ونحرسها ما قال نو إيمان شرمية كإيمان شريه همنا جمعة
aaga magaalada waa camraa waqtiyada roob baa la ku shubay reerkiisu dhawaayo mawlidkan iyo quraanka iyo kutubaha iyo halka ka akhri jiray markaas sidaas uu ahaa markaan asxaab u soo wariyay qoladii loo kala markaan markaas dacwadii geynay معلم محمد كان waxay u qoreen mushaaro 9 shilin marka lacag iska fiican oo taxtaysa marka 64kii uu qaatay mushaarada horeysay sidaas oo markaas qoladii loo kala markaan mas'ala dacwadayo sanadkii 65kii bay lacagtii ka naaquseen 9 beedo 45 bay u reebeen 45 waa ka jireen harci baan geeyna maxaa dhacay baan nidhi ani cilmaan wada soconnaa sheekhu aad buu shaqeeyay ayay meeshii baan lacag baan jirin dowladda hoose lacag baan jirin lacag baan weynay راجي بان ugu qoray markaas wuxuu argay biro la tagay rasuul Allah dhaafay muqdisho la gudbi ay wuxuu saxiray raajida uu qaatay ilaahay xamar buu la tagay indii taati ahaa markii horeeto waqtigii 64kii laga doortay laascanood oo gacan siiyay Sheekh Ibraahim ragii dhisay ahaa Maxamed Alloora la oran jiray oo xildhibaan markaa oo ragii ka shaqeyn jiray xamar oo aad dawladdu kala yaqaan waa markaas gacan qabtay agaasimaha guud waxbarashada u geeyay oo ka soo qoray معلم ديانها دوكسيغا دخه كان meeshu 9 ku soo aqtaawonay 45 loo soo celiyo 350 baa loo soo qoray isaga waa soo noqday caadi iska jooga baa lacagta dawladda laga keen in si badan buu ahaa oo sabir baan lacagtaas markaa qaadan jiray maxamed waa dhigi jiray miyana waa bixi jiray markaas lacagta markaas waxa ay lacagtu ma khusayso malcaamadda reerkaaga iska odayaal baa kula tagay cilmiga markii ugu baahan hal arko reerku iska aada ayna baa markaa lacagtu qaadi jiray oo diri jiray oo ilaahay waa sahlayo insa badan buu ahaado lacagta geel badan iyo xoolo badan ma ka dhacay doorashadii dambeeto ahayd 69kii baa la dacweeyay dad baa dacweeyay doorashada la isku qabtay la isku laayay waa la dacweeyay dad baa akhraa waxay yiraahdeen nin lacag badan qaato Maxamed Dahbalka jooga waa loo yaro waa raac nafsada waxa la lacagtan waa ninkan waa shaqaale dad baa xilay ninkan lama shaqeeyo la gooy waa shaqaale uu shaqeynaya meesha la doon ka shaqeeyo laakiin lacagta sidee loo gooyo lama gooyn karo diiwaanka ku raacay markaas wuxuu noqday macallin aan macaan shaqo laakiin iskuulada wax ka dhiga iskuulada markaa macallin ka jiray هذه يعني مصيبة بضنبوها تبعد ما صنبوها من دقسي أبوها من عبادة بضنبوها من قاري أبوها هذا يعتنى مرة كاغي ما نحن حالة ده من كتشرنا أي وناق الطوام إلهي ما هنغي عبادة بضنبوها أين كاسوها مركز من عمد دي مركز المساجد كي وأضوع عمرها يسوي مركز معلم ما ذكر كل شيء وحياه مركز بالي بدليه يدهم معلمينتي معلم هكا هذا ماشي مركز شيخ ابراهيم سيدا صوها معرفه دير بان صوهين markii dambe tabni badan ma ka shaqeeyay buruud ma ka shaqeeyay muraan ma ka shaqeeyay asaab ma ka shaqeeyay aan martin deeqsi abuha
هذا ماشي دبعات وناكسن وعبادة بدن هاي جنة كورابية وصبر بدن بوها سيدا صناعة سوون نقين صاحب الموضع قال لي حق الدين تي علماء وانا قاعد حيسي انت قدم بي سنة مرة ماشي كشغ مربوعة مكشغية مرة صعب مكشغية إلهي الدولة هذا أي دعيسي وأنا كان معلم كهو نكسنه معلم ديانها بوها اسكولر كيرها معلم ديانها هو عربي أيه قرآن كيو تفسير كيو حاس كله يصير الشيخ إبراهيم قال يا أبوها أرمي سوانا سعودي dadka isu dhow yihiin baan ahaa markaas waa dadka hadda jooga yani dhaqankiisu inuu ka sareeyo xagga dabeecadda la socodka aan qabyaalada aqoonin oo ma dadku isugu mid yahay oo cibaado badan aad ilaahay maaragtay dadka cibaadada badan buu ahaa deeqsiyaho أننا مارتي وسنكعب كريم وقعد بدنه نور بساد وقاته أين كاسوا شو براند سيدت كي سنة مرخاوي سنين دت كي سنة في مارتي عن سواء نساء سوح ده خمس ساعة سوح ده مركون أسان شو أنا مساعد كنت سنة عن إمام كاه الله سبحانه وكنت سنة المرة حق بوعة مية ذا سنقرب كل هاي وبدنه مركا ميلها قالنا مسيبات شرده وسعون شرده وري سيبا تبي شرده بعديها يا مقالة بوعة مبع مركاس شيخان عيكاس وهذا غن مناكسن شيخا يبعض بدن شخصية سيدا أنا كابل سيدا صيحي أساسي بوعة مرقي كوجو بابي بري بوكين مركان حوغا البحر مسيادة على بوها مركا بري بوكين مقتي بدي الحدمية مركاس وعارف كوجو بابي هنا بيش أو يهي هنا مقالة سميستان بالي كلام مقالة بسميستان يعني هنا مقالة سميوه وعروضا وحلا بروه ومقالة كدقوه وعروضا وحلا بروه ودادك الله يسلسمه نقاري عين كاسم وعديس عين كاسو هادفك والله دول قاطو مركاس مقالة وادي بدنت الله دول قاطو مركاس مقالة مركي بعمل اسميه دادك ويس عدادية ويس حسته بدبا كوكا عي لمقالة وعمل دو حبا وين يعيل حلو كعبان مركا وميل دقان دادك نواشا يدادك حوت اللبضة يدادك بارقا عين كاسو دوحوين واوين بقى فداد داير مغالد مقالي كتو يرشينا داقو وعين كانوا لقوا مارم كاري ولا سكوري مانيه هذا مركا مفتية الدولة دي يميه وقليه بان قرطاني ورحدين أنا كلا هذا الله يونيني المقالة waxay wanaagsan waxba xumaynaysaa dadkii magaalada wada sameystay reerkan hadaada tashadeen magaalada sameeyeen in lagu taageero mooyaan ma ay laha in la cadaadiyo ama laga baabi'iyo waa qalad markaas waqtigii afalixan doorashada ahay markay soo socotay Allahu naxariistay waxa gacan siiyay rag badan markaa gacan siiyay ربنا بقى عنسي هل جراد بنوت هنا مركز حاجة اللي بنا لو وعد الداد على مركز في ما حد يكره ومجال جراد محمد بن كان شر ناس عنه هذا مركز فيه هو اللي مجال سوي مجال يحوله وقال بدل ما نورتاجين حديث ظني أينا من كاسوا من بدقيو magaaladii oo hore mariyaan dadkana ku soo dhaweeyaan hala nabad geliyo arimahan ka ogaa shaqeeyaan arimaha hormuud buu ka ahaa hormuud rabshada mar rabshada ka dhaceen oo taagna wuxuu lahaa dadka rabshada hal la joojiyo magaalada sameeynay dulqaad in qaali ah
sidaan ka wada asaasay. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka magaalada isaga wax ka asaasay isugu asaasay waxaa ninkii asaaska iyo abaabulka ugu horreeyay asaaskii xagga masaajidka macaamdu soo qaabsan, laakiin in magaalo la asaaso oo reerka beeshaas magaalo dhisato dadka waxbaran raggii abaabulka ugu weynaaba ka shaqeeyey soo bari ka iyo marka dadka la ognay. Sheekh Sheekh Ahmed Sheekh Cabdi waxaa la codsaday bal wixii aan ka ogaa saaxiibkay Sheekh Ibraahim Xaaji Maxamed Sheekh Ibraahim inaan soo gudbiyo ayaa layga codsaday. sidaa darteed aniga barashadeedu way dambaysay. waxaa iigu horeysay markii 1969 baa kow ahayd barashadayadii kulankaygii burcaanu ku kulannay isagiyo cali jaamac wadaad nimankii saalixiyada odayaashaa bay ahaayeen. anna magaaladan joogay oo deganaa burco. barashadii koowaad halkaasay ahayd. kadib laascaanood baanu isugu nimid muddo daban kadib baanu isugu nimid. kadibna barashadii way sii socotay. waxaan ugu tagay boocama aan ku wareystay. wuxuu ii sheegay isagu markiisii hore inuu bari magaalo ah ku dhashay oo geesaley la yidhaahdo. wuxuu ii sheegay inuu masaajidba ka dhisay, dhirna uu ku sameeyey oo haddii alka dhir timirana uu ku sameeyey oo ay ka baxday. wuxuu ii sheegay waxbarashadiisii inay cadan ahayd buu ii sheegay. kolkaan arkay dee siduu wuxuu yaqaano ayaan anigu weydiiyey oo nidhi markaaga hore xaggeed ku bar. wuxuu anagu xaggan maanaan deganayn, geesaley baan ku dhashay, halkaasaan ku barbaaray, cadan baan wax ku soo bartay. 55 meelaha ilaa 45 iyo 50 intuu dhaxaysa ayaan dhulkan imi anigu. walaalkay oo Sheekh Usman la jiray baa iigu yimid geesaley. aniga isagoo halkaas ku noolin reer culimo ah oo la yaqaano ayaanu ahayn oo halkaa ku beermay. kadibna halkanaanu nimid halkanaan imid anigu. waxaa la ii qaatay macalin dayaano iyo qaadiga boocame, labadaasaa la ii qaatay. muddadaana waa shaqaynayay. markuu saa ay ugu warramayaan waaba beri dhoweyd bay ahayd. anigu intaas waa intuu ii sheegay inay halkaa ku dhasheen oo halkaa wax ku soo bartay oo uu nin hadaalka yidhahdo reer bari ahaa ilaa 45 intuu dhaxaysana uu yimid uu ii sheegay. waxaan anigu arkay aqoontii uu lahaa diinta xagga axkaamta si fiican buu yaqiinay. carabiga ku hadalkiisa iyo qoraalkiisana si fiican buu yaqiinay. haddaan sifadii soo qaato nin quraan akhris badan buu ahaa, nin tawaaduc badan buu ahaa, nin dadka soo dhoweeya culimada abuu ahaa. wixii aaggaa soo gala haggeen tagna haddii la yidhaahdo Sheekh Ibraahim u taga baa la odhan jiray. annaguna halkaasaanu isku aan ku kulannay. annagoo dib dambe isu arag ayuu dhintay. anigu intaan ka ogaa waxaa weeye inuu ahaa nin caalima oo taqiya oo khuluuc badan oo salaad badan oo qiraan badan oo islaama oo dadka xidhiidhiya ayuu ahaa. naa'ibna uu ka ahaa qoladii taariikh ee saalixiin loo jiray magaceeda. waa niman wanaagsan ahaa insha allahu tacaala. boocamuu uu masaajidna ka dhisay, malcabadna ka dhisay. markaasaa macalin diyaani iyo qaadiba loo qaatay. uu ka soo shaqeeyey ilaa burco, ilaa hargeysa, ilaa berbera, macalimo laascaanood, meesha la yidhaha beled weyn macalimaan kaga shaqeeyey buu ii sheegay. sidaa darteed wuxuu ahaa nin ilaahay ka raaliya subxaana allah. isagii islaamka dhintaba allah ka raali ahaado. halkan waxaan ka sheegaynaa oo ka akhriyaynaa Sheekh Ibraahim Xaaji Maxamed. Sheekh Ibraahim taariikhdiisii intaan ka aqiin anigu intaan ka aqiinna in kooban weeye. waxa weeye isku baanu ahayn, isku kooras baanu ahayn. waxa weeye intii aanu waxbarashada ku wada jiray intaasuun baanu Sheekh Ibraahim isniqiin. intaasuun baan ka sheekaynayaa wixii aan ku arkay iyo wixii aan ka bartay iyo sidaan u ogeyn. haddii la eego xagga matalan islaamnimada wuxuu ahaa Sheekh Ibraahim islaamka nin ku bannaan
maxaa yeelay islaamka waxaa la yidhi islaam waxaa man sallama muslimuuna min lisaanihi wa yadihi wuxuu ahaa nin carabkiisa iyo maalan laga nabad galo yuu ahaa carabkiisa iyo gacmihiisa intaba ayuu sheekh ibraahim ahaa wuxuu ahaa islaam aad iyo aad ugu wanaagsan islaamnimada haddaynu eegno xagga caqliga wuxuu ahaa nin caqligiisu buuxo oo caqli wanaagsan maxaa yeelay caqligu waa ka dadka wada ee kala wada maalan lagu soconayo alcaqlu saliim fi ljismi saliim baa la yidhi caqliga wanaagsani wuxuu ku jiraa jismi wanaagsan iyo shaksiyad wanaagsan ayuu ku jiraa markaa sheekh ibraahim wuxuu ahaa in caqligiisu ku filan yahay dadkuna maalan wuu raalli ka yahay sheekh ibraahim wuxuu ahaa nin akhlaaq wanaagsan akhlaaqdiisu waxay ahayd ta loo baahan yahay ee laga doonayo ummadda islaamka ah markaa akhlaaqdiisu waxay ahayd heer saray ahayd maxaa yeelay akhlaaqdiisu waxay ku fadhiday diinta islaamka iyo aadaabtii nebiga iyo asxaabta markaa waxa weeye wuxuu ahaa addoon akhlaaq wanaagsan marka la eego camalka maalan laga doonayo acmaasha laga doonayo dadka islaamka ah wuxuu ahaa nin camal falah oo xagga islaamka camalkiisa aad iyo aad ugu wanaagsan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u cibaadaysata oo cibaadadiisu ay dibadda uga soo baxday oo nuurkiisa aad ka akhriyaysay maalan wejigiisa markaad aragtid yuu ahaa sheekh ibraahim sheekh ibraahim xaaji maxamed wuxuu ahaa addoon wixii bartaa ayaan ka xiisa goyn wuxuu ahaa kuwa la jeclaysto maalan fadhigooda iyo la socodkooda ayuu ahaa marka loo tago maalan sheekh ibraahim xagga waxbarashada waxaanu ahayn isku kooras baanu ahayn sidii ayaanu wax ka baran jiray oo iyaga ayaa waxayna ahayd meesha macallimiinta ay ay ku bartaan tarbiyadda iyo waxbarashada intaba wuxuu ahaa sheekh ibraahim nin aad iyo aad u daris wanaagsan maxaa yeelay isku galaas baanu ahayn intaanu wada joognay maalan kooraska aanu ku wada jiray oo aan ahayn muddo yar ee muddo badan ahayd waxa weeye sheekh ibraahim maalan weli cid ay iska hor yimaadeen iyo cid ay wada hadleen oo kelmad keliya oo khalada ay ka dhacday ma ayan ahayn intaa aanu wada joognay intaasina muddo yar ma ahayne muddo badan bay ahayd may isagaa yimi aniga waxa booramaa la bedelay markaanu dhamashanay markaa sheekh ibraahim waxbarashada saasuu ku ahaa oo wuxuu ahaa nin maalan deris wanaagsan buu ahaa oo galaaska iyo maalan kuwa uu la fadhiyo maalan miiska ay isku miiska yihiin ay isku aad iyo aad raalli u kala yihiin oo raalli looga yahay buu ahaan jiray sheekh ibraahim raggii waxbaray waxay ahaayeen macallimiin ka socota jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa yuuniskoodii
maalan ahayd sanad macallimiinta iyaga ayaa tababari jiray iyagaana tacliinta siin jiray oo waxbari jiray waxay ahayd maalan macallimiinta iyadu waxay ahaayeen masaari ay ahaayeen laba galaas baan ahaayeenoo galaasna waxaa dhigan jirtay inta ingiriiska wax ku barataa midna waxaanu ku dhigan jiray inta diinta iyo carabiga wax ku barataa labadaasina waxay gaar u yihiin maalan macallimiinta ay gaar u yihiin kooraska waxaan ku galay Hargeysa marka Sheekh Ibraahim adoonkaas uu ahaa daawadayaal waxaan intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkii aan ka diyaarinay Sheekh Ibraahim Xaaji Maxamed Sheekh Ibraahim Allah u naxariistee